soo dhow Axmed Gacaltooye ما سنتي مصطفى طاهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسود هذا مركله إيوه FPL Somali مقعي هو داهر عبد الله علي مركله الكسود هذا برنامج كله أو أنكو فلانقينه فانتسي بريمير ليج 2022 qodobada maanta aan ku soo qaadan doono oo ugu muhiimsan waxa kamid ah isbuuc ciyaareedka ugu horeeya ee xil ciyaareedkan cusub ee hadda dhawaan furmi doona iyo shaxda macquulka ah ee la dooran karo iyo saxiixyada cusub ee ku soo biiray iyo waliba qaabka kabtanada ugu horeeya oo dooran kartay balse waxa marti ugu ah maanta Axmed Cabdiraxmaan Aadan Gacaltooye oo fantasy muddo soo ciyaaray falanqeyn ah barnaamijkana maanta marti ugu ah soo dhow Axmed وما سنتي ظاهر برنامجك مدة كسو جري مقعيقنا هراء وشيكت أحمد قعلتوي وما هذا أو ما سنتي وكله برنامجك ما سنتهاي سنة ولا أكسونهاي إن سحل عيارتك وفرم دونا مالنتا جمعها 16 أغسطس كلهم أغسطس هرينا برنتفورد أرسنال بل محاد نقدي كرتا برنتفورد أرسنال يو عيارنا ذا أما أسيتس كوجرو كلهم كاس kulankaas horta waxay ila tahay kulan ku dhamaan doono 2-0 laakiin waa saadaalinteeda sida aniga jeclahay Arsenal lama taageero laakiin maadaama kooxda ay cusub tahay mar walba Arsenal kulanka ugu horeeya waa badsaa laakiin nin meesha waxa ku jira oo Tony ay dhahayaan oo soo qaaday top scoreka oo Premiershipka waa marka ninkaas Arsenal difaaciyadeeda waru gelin doonaa aadiyad Evan Tony waa runta ku soo qaaday Real Heerka labaad ee hadda ay ka soo baxeen Brentford sidoo kale waxay ciyaarayaan sanadkii ugu horeysay Premier League dhanka kooxda Arsenal oo kale daafac waxay soo saxideen Ben White oo konton ay ka soo bixiyeen oo ka mid yahay ciyaaraanada ku soo biiray daafacyada iyo weerarka oo kale khadka dhexe Arsenal maxaa laga qaadan karaa isleedahay markii laga reebo Arsenal waxa laga qaadan karaa oo ugu muhiimsana waxay tahay difaaca Tierney Ben White oo qiimihiisa aad u yar yahay oo laga yaabo 4.5 kulanka ugu horeeya horta hadaan la safin laakiin kulamada kale leen ab inuu helayo waa macquul ay la tahay maxay koox fiican uu joogay Brighton si fiican uu ciyaari jiray marka Tierney iyo Ben White waxa kale oo la qaadan karaa Saka oo nin dadaal badan ay tahay iyo Lacazette Bebe hataa hadii uu line up helo nin dadaalayo Bebe waxaan xasuusanaa xil ciyaareedkii hadda dhamaadkii xil ciyaareedka hore ilaa 5 gool ee 10 gool kamid ahayd uu dhaliyay wuxuu dhaliyay 3 kulan ugu dambeysay marka ma la dhihi karaa wuxuu kamid noqon doonaa dadka xil ciyaareedkan laga filan karo dhibco badan hadii la dheelsiyo dhibco badan waa laga filan karaa laakiin Arteta inay dhahayaan waa qaabka uu ciyaaro ani ilaa iyo hadda waa fahmi waayo mar Smith Rowe safa mar Martinelli mar iga fariiso dhaha El Nino markeena Shaku ciyaarsiina marka nin lagu wareerayo shaxdiisa ma fadhido maalin buu qof baroobena baroobadaasna waxay u keenay kooxda in maalin walbo dhibic ama ay lumiso marka waxay ila tahay ani Bebe hadii la safo laacib waa Bebe aadiyad kulanka maalinta Sabtida ugu soo horeeya waa Manchester United oo martigelinaysa kooxda Leeds waan ognahay waxa wado tababar Bielsa oo ciyaarihiisa iyo qaabkiisa ciyaaraan ku dhisan kuleelka iyo weerarka ku dhisan waayo Manchester United-na difaac Varane ay soo saxiixatay Sancho ay keensatay marka isbedel baa ka muuqda marka Manchester United kuwa lagu hormari karaa isleedahay oo laga dhisan karaa isbuuc ciyaareedka ugu horeeya Manchester United isbuuca ugu horeeya waxa laga qaadan karaa horta way caddahay Bruno Fernandes ninka kale oo labeynayo waa Harry Maguire ninka ugu horeeya horta Man United laga wada qaatay adduunka oo dhan 8 milyan ciyaarayso 4.9 milyan waxay qaateen Luke Shaw sida adigaba ogtahay boqolkiiba 53 qaadatay maadaama uu si fiican ugu soo muuqday ciyaar Euro weer celintiis oo keenay ninka labaadna wuxuu noqonaa Bruno Fernandes waxa soo saddexinay Harry Maguire inta kale waxay iska noqonayaan ciyaartoy dhibco badan keenay meelaha maxaa yeelay Pogba hataa markuu kubadda caadiga ciyaarayo waa aragtay nin iska baashaalo ciyaarayo macnaha dadka oo ciyaaraha falanqeeya waxay dhahaan farqiga u dhaxeeya Pogba markuu joogo Faransiiska iyo markuu joogo Manchester United waxay dhahaan waa Kante ama ciyaaryahan qad dhexe oo adag oo
aad sida Kante oo kale u xoogan Manchester United ma joogo saas camal xorriyad buu u baahan yahay markii uu ciyaarayo Pogba sida xataa ka dareemaysay kulamadii hadda Euro uu soo ciyaaray kale yani baasas uu bixinayay sida kulankii Switzerland oo la soo reebay Kante ma la helayo Kante Manchester ma joogo marka ina isxil qaanto sida Bruno Fernandes oo kale oo soo xilqaamay oo u dadaalayo oo qeyn Bruno Fernandes iyo xataa wax baasin iyo xataa Benoni dheelin af Soomaaliya ku dheela aad iyo aad waa dagaalyahan Orban oo gacan uu ku soo riixo mar oo dad la hadlo maanta dhan dagaal ku jira marka ninkaas oo kale haduu noqon lahaa Pogba iyo laacibtimiisa hadii la isku dar lahaa Benoni fiican dagaalyaraha ka muuqdo waa waxa Mourinho asaga isku dhaceen ko dhinaca Leeds oo kale maxaan dhigi karnaa Leeds koox adag waa Bamford oo mar walba shabaqaas daris leh iyo Stuart Dallas mid ay dhahayaan oo difaac ahaan jiro hadda weerar laga soo dhigay Cobra oo kale difaacoodu waa shidan yahay iyo Island iyo Rafinhaas nin ciyaaraya ma dhaxdaas haduu kugu helo laba aad waa darbada oo kale wuxuu kamid ahaa dadka ugu darbada fiican tuuray xil ciyaareedka la soo dhaafay kooxdan ilaa 10 ugu sareyso wuxuu kusoo gashaa la dhihi karaa ciyaaryahanka lagu magacaabo Jack Harrison oo kale iyo Rafinha iyo isku xirnaanta Bamford ayaa u sababtay inay hadda kulanka Man City ay u baxayeen inay dhahayaan Dallas 2 gool oo ka dhaliyay marka Dallas in inda fiican loo Dallas xil ciyaareedka wuxuu ku diiwaan gashanaa difaac ku diiwaan gashanaa kii diyashaha watay oo Stretch ay dhahayeen gadaal la geeyay asaga waxa la keenay hore nin number diyasho wato oo trade ilaya Alioski diyasho watay oo hore dheeli jiray gadaal loo celiyay Dallas oo 15 wato hore la keenay marka macalinkan shaxaas oo u shaqeysay wuxuu noqday kaalinta 10aad iyo 10aad meelahaas ku dhameystay horyal aad ma santahay saaxiibkii gacaltooyo saaxiibayaal waxaan idin xasuusinayaa in channelka YouTube-ka FPL Somali sidoo kale Facebook-ga iyo Instagram-ka iyo Twitter-ka aan ku leenahay akoono oo aad nooga soo biiri kartid sidoo kalena aad nooga waxaa jira group oo aad ku soo biiri kartid oo aragtida iyo waxyaabaha wararka la xiriir fantasy-ga oo dhan halka aan ku soo gudbino xasuusnaada inaad subscribe na saartaan aad ma santiin Chelsea iyo Crystal Palace waa asna kulan xiiso leh oo maalinta Sabtida la ciyaari doono Chelsea waxaan ognahay inay tahay koox boqortooyada Yurub maadaama ay ku guuleystay koobkii UEFA Champions League maxaa laga filan karaa ayagana markaan xil ciyaareedkan Chelsea xil ciyaareedkan wax badan laga filan karaa haddii Lukaku ay hesho Chelsea Lukaku haday hesho waa wax badan ay isugu aaday daafacoodu waa adag yahay Rudiger iyo Thiago Silva iyo James iyo Chilwell Aspilicueta meeshaas ciyaartooy yari ma taalo ciyaartooy badan ay haystaan dhaxda waa ogtahay Kante iyo Jorginho waxa waaye Kante World Cup uu kusoo guuleystay ninkan Jorginho Euro kusoo guuleystay champion way isla qaadeen marka meeshaas shaqo adag ah taalo Mount joogo Havertz joogo meeshaas ciyaartooy fiican ah joogto laakiin Crystal Palace Eze nin dhahayaan Eze iyo Saha ayagana waxay kamid yihiin gaarsiin kara Chelsea dibay gaarsiin karaan iyo macallin fiican oo waxay heleen Patrick Vieira oo nin oo u samaysan tactician Chelsea oo kale hadda sida sheegtay waxay rajeynayaan inay helaan Lukaku sidoo kale waxay hore u haysteen Timo Werner oo markii loo fiiriyo jaanisada uu cuni jiray laakiin saameyn badan ku lahaa goolasha iyo waxaabihii ay Chelsea sameeyeen xil ciyaareedkii la soo dhaafay oo Thomas Tuchel uu aad u amaanay oo ciyaarihiisa inta badan uu ku soo bilaabanay marka Timo Werner maxaa ka filan kartaa xil ciyaareedkan horta fantasy-ga ciyaaryahanka marka la qaadanayo waxa loo qaataa inuu assist sameeyo iyo inuu goal dhaliyo marka Timo Werner goal horta ma ka sugayo ani ahaan weligay ma qaadan sax أنا كسر ما حلي عارض كم كوب بالله أسبوع أوري عن قاطي أسست مياه يوم كاني ninkaas ani ma qaadan rabi waxa waaye qofkii qaadara waa asaga u taala laakiin Lukaku haduu imaado laga yaabaa inaan ka qaato Lukaku min Premier League aad u qaano nin xoogsanayo waaye hadana nin yar 24 jir waaye oo ani iga yar aadi hada kamera ninka feerawe nadi kamera kulanka Liverpool iyo Norwich City ka waran xil ciyaareedkan ugu soo horeeyay Liverpool iyo Norwich City
Liverpool kulamada ugu horeyso way badisaa markii horyaalka ay qaadaysay miya markay qaaday kadib kulanka ugu horeeyay waxay la ciyaartay Norwich City waxayna ku garaacday 4-1 xilli ciyaareedkii labada kun labaatan xilli ciyaareedkii soo dhaafay marka 4-1 ay ku garaacday haddana mar kale oo Leeds iyo Liverpool lagu furay 4-3 ku badisay marka Liverpool kulamada ugu horeeyay wax fiican laga fishaa marka waxaa is leedahay kulankaana wuxuu noqon doonaa kulan maamulayaasha FPL-ka ay ku xisaabtami doonaan aad kulan kaloo isna waxaa jiro kooxda Leicester City ee la ciyaari doonto Wolves waxaa jiro maalinta Sabtida ah maalinta Axadda ah laba kulan jiro oo Newcastle iyo West Ham is arki doona kulanka kale ee toddobaadkan ugu xiisaha badan oo ugu weyn Tottenham iyo Man City haddii aan fiirino Manchester City waxay la soo saxdeen ciyaaryahan xilli ciyaareedkii la soo dhaafayna kamid ah ciyaaryahanadii qadka dhexe Janis abuurista gool dhalinta ugu fiicnaa waa Jack Grealish waxaana Man City sidoo kale qayb ka ah ciyaaryahanada ugu badan ee saameynta ku lahaa qadka dhexe marka la Gundogan De Bruyne Foden oo kale ilaa ciyaartoy dhowr ah ku jiro marka Bernardo Silva Mahrez kulanka dhinaca kale Tottenhamna waxaa kamid ah Harry Kane Son iyo ayagana bal ka waran toddobaadkan maxaa laga tagi karaa maxaa la qaadan karaa Tottenham iyo Man City Tottenham horta Harry Kane hadduu sii joogo oo una Man City aadin nin la qaadan karo iyo Son labadaas nin laakiin ma isku helisid labada nin inaad qof ka tagtid midna aad qaadatid waa ileen budgetka saaid u yar marka Son qaadan lahaa Son hadda maadaama in badan hadda tababarkii uu la joogay kooxda uu Son markii loo fiiriyo kulankii hadda saaxiibtinimo Arsenal iyo Tottenham gool u soo dhaliyay waxa la dhihi karaa Sana ura dhinaca Harry Kane laftiisa tababarka oo hadda ku yaran baa la dhihi karaa yani fitnesska hadda wada hadalada socdo tababarkan uu ku soo laabtay dhanka kale City waxa ka qaadan lahaa Stones waa wataabo shaxdeeda ku jira Gundogan nin la qaadan karo waaye waxaa kaloo la qaadan karaa Foden waxaa kaloo la qaadan karaa Mahrez haddii la safo marka Man City ciyaartooydeeda dhan wax laga tagi karo waxa laga tagi karo laakiin waa ogtahay Pep Guardiola waa isku qasaa weerarina mar adoo qaatay Cancelo adoo qaato wuxuu soo safaa Walker Zinchenko qaadatay Mendy oo soo safaa walaal sidii ku qabaan nin ciyaartooyda u badan tahay wuxuu rabo iska safaa marka loo fiiriyo depth oo yani Manchester City waa aad iyo aad u heersanaysa toddobaadkan xilli ciyaareedka furitaankiisa waxaan dhihi karnaa maamulayaasha waxay haystaan kulamo oo si gaar ah ay u fiirsan karaan iyo waxaa jira ciyaaryahanno laga dhursugayo oo saxiixyada cusub sida Sancho Ings oo kale aan ku bilowno Sancho Manchester United ku soo biiray Sancho assist uu sameeyna waliba kulankan oo kale kulan wuxuu noqonaa oo Leicester ordo garbaha laga wada cararo kulanka Leeds kulan ordo noqonaa oo Leeds dhinaca ka orday Man United dhinaca ka orday Daniel James inuu igu soo bilaabo bel ahaan James iyo Sancho labada garab hadii ay dheelaan ama Rashford iyo Sancho dhaawac waaye ilaa bisha tobnaad Rashford hadduu dhaawacaya marka Daniel James iyo Sancho marka meeshaas waxaa ka muuqdo orod badan Martial Bojo Martial waxaa rabto Tottenham rabto haddii laga qaato ama Inter Milan ama Tottenham Martial ay qaadan rabaan haddii ciyaartooyda laga qaato Cavani khatar waa Cavani nin la qaadan karo Cavani hadda waxaan isleeyahay maadaama dhaawacyadan iyo wada hadaladan hadda Martial oo kale oo yani socday iyo waxa laga yaabaa in sidoo kale line uu noqdo Greenwood ay jira asna laftiisa laga yaabo inuu fursad meesha ka helo Sancho marka waxaan isleenahay maamulayaasha ku xisaabtami karaan fursadihiisana aad u badan maadaama Premier League horta wali ma ciyaarin kulankaana lagu fiirnaa haddii lagu soo bilaabo ama gadaal laga keeno laakiin Sancho nin dhaqaaq badan waa inta aan ka fiirsaday oo Borussia aan ku arkay nin dhaqaaqayo Premier League ka soconayo aad iyo aad Grealish ka waran oo Manchester City ku soo biiray oo 100 laga soo bixiyay oo ah wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu lacagta badnaa ee horyaalka Ingiriiska dhexdiisa lagu kala gato Manchester City horta koox lacag hayso waay koox oo haddana ciyaartooyda ay ku yartahay ma aha marka waxay sameyn kartaa inay soo gadato iska dhigi kartaa iska fariisa dhigi kartaa
marka haddii la safana waxaa macquula meeshaas inuu fursad badan oo ka abuuro saameyntiisa laga yaabo inay yaraato maadaama rag waaweyn oo ay hore usii joogeen marka sidoo kale Manchester City marka loo fiiriyo weerarka oo kale number 9 ilaa hadda mayso iibsan sida la sheegay number 9 ay soo gadan doontaa Harry Kane la xiriirnay City 9 ma ciyaarto marka City 6 kulan hadda ugu dambeysay waxay dheelaysay Fernando Gundogan iyo Fernandinho horena waxaa dheelaya Foden iyo Mahrez ama Foden ama Ferran De Bruyne dhexda dheelaya oo weerarka noobaha marka City haddii ay rabto inay ku qalado oo ku qaldeen sida Champions League ayada isqalad taas ayada isqalad laakiin Premier League hadday imaato City caadi ku qaldeen aad saxiix kale Premier League dhexdiisa ka dhacay wuxuu ahaa Danny Ings oo ku biiriya Aston Villa Danny Ings horta ciyaaryahan number 9 oo Southampton markuu joogo shidnaa oo waxyaabo badan sameeyay ahaa Danny Ings marka haddii aad qaadanaysid waxaa ku qasbantahay inaad Ole Watkins ka tagtid maxay labadaas nin midaa shidmaayo inaad khamaar ciyaartid oo aad dhahdid Watkins iyo Danny Ings inaad qaadatid ama Watkins aad qaadatid oo ku qasbantahay Ings hadda kulanka ugu dambeeyay gool soo dhaliyay oo saaxiibtinimada ay ciyaarayeen gool soo dhaliyay marka ninkaas inda gooni in loo lahaado ana xataa waa wataa haddii fiirsid xilli ciyaareedka la soo dhaafay kale Ings waa yani dadka ugu saameynta badan oo kamid ahaa inkastoo dhaawacyo ay qabsadeen saaxiibkiis hadda cusub Danny Watkins oo kale waa ku soo bilaabashada macalinka maxaad dhihi kartaa waa siday kula muuqataa horta macalinka ninay Watkins dhahayaan line-upkiisa banaanka inuu soo dejiyaa laga maadaama Grealish meesha ka baxay in Watkins uu soo dejiyo oo Brentford wuxuu uga ciyaari jiray markaan xasuusano Watkins marka labadooda line-up haddii la isku helo meeshaas daba ka dhalanaya maxaa yeelay Ings oo dhib badan oo dhalis badan maanta oo dhan ciyaartoyda daafaca weerarka gelinaya iyo Watkins oo cunug yar oo da'yar ah oo ordi kara oo gambin kara cross keeni kara macalinka haddii uu gadaal dhigto assist labadooda haddii la isku qaadan karo beel aale aad hadda FBL ahaan markaan u fiirino khamaarkaas waxaas leeyahay qof geli kara waa yar yahay in laba weerar oo isku koox ka ciyaarta inuu haddana isla qaato marka loo fiiriyo weeraryahanada hadda ugu caansan waxaan dhihi karnaa waxa ugu horeeyo Mikel Antonio oo kale bal ka waran Mikel Antonio xilli ciyaareedka soo socda Mikel Antonio xilli ciyaareedka soo socdo kulanka hadda ugu dambeeyay shalay ay dheeleen gool soo dhaliyay marka Mikel Antonio asagana isbedel soo wada waa xilli ciyaareedka horena wuxuu ahaa markii hore in la dheelsiyo la bilaabay 4 2 3 waxa uu dhalinaya marka nin xoogiisa wato orodkiisana saaid waa waxaan galeynaa kabtanka doorashada kabtanka oo ayadana xilli ciyaareedkan kulan ciyaareedka ugu horeeya iyo waxa maamulayaasha la dhihi karo way dooran karaan kulamada ugu aan haday taabaneen wuxuu ahaa kulanka Liverpool iyo Norwich horta boqolkiiba 60 Mohamed Salah la siinaa kabtanka aniga xataa kabtan asaga ay marka waxaan ku laba shakinaa inaad triple iyo in kale ma waa dhigtay laakiin shakiya igu jiro kabtan boqolkiiba 50 Mohamed Salah iskale markii loo fiiriyo taariikhda Norwich iyo Liverpoolna mar walba ilaa 4 bil ugu geeyay way ka adag yihiin iyo Norwich oo laga qaatay Bundia ninkii laacibka ahaa laga qaatay waxaa hadda macquul ah xataa in laga qaato Todd Cantwell haddii ama Aarons haddii labadaas mid laga qaato Norwich waa ku daysa seasonkan soo socdo waxay u dagaalamaysaa inay aqoonin waxaa garanay isla kulankaas Mane oo kale kabtan Mane kabtan weligii ma siin Mane kabtan lama siin karo maxaa yeelay Mane laf dhabarta kooxda uu dadaalaa gool ma dhalinayo inuu soo gaarsiiyo Firmino ama Jota ama Thiago Jota laftiisa ma shareeyo Jota ma shareeyo laakiin kabtan ma lagu aamin karo kabtan waa Salah kabtan Salah isbuucan dadka dhan Salah ay wacdeen dhinaca Fernandes oo kale Manchester United Fernandes game adag u dheelaya kulanka Leeds
kulanka Leeds kulankaas kulan adag waa maxaa yeelay Leeds waxay sameysay horyaalkan waa ku aragnay waxay soo wadana annaga ma ka warhayno laakiin Leeds haddii la fiiriyo iyo Norwich Leeds Leeds marka Bruno Fernandes captain ma lagu degdegi karo ma sheegin haddii qamaar aad dheelaysid kulankaas laba rigoor la helaa Fernandes uu dhalina ama hal rigoor iyo hal free kick oo daraad Everton oo ka dhaliyo kale oo dhalina haddii la dhihi karo qofkaas uu gali karaa laakiin boqolkiiba 10 Fernandes waayo intaas la ekaan kartaa ka waran Firmino oo kale Firmino iyo maadaama kooxdaas uu baxayo Mikel Antonio Newcastle ka hor imaanayo kale Mikel Antonio nin kabtan laga dhigan karo waaye laakiin Newcastle waa madax adagta Newcastle koox madax adag waa koox xilli ciyaareedka hadda intii ugu dambeeyay kale kulamadii ugu dambeeyay Steve Bruce wuxuu go'aansaday inuu ka badbaado wuuna ka badbaaday marka uu ku faktay badanaa Willock oo loan ugu jooga kooxda hadda xataa aan hana laga gaday dhahin oo laga diiday waxa maqlaayay waa ilaa 20 bay gaareen oo waxay soo galayeen in Arsenal ay isdhiibto kulanka Chelsea iyo Crystal Palace ya kabtan loo qaadan karaa isleedahay Chelsea Crystal Palace Havertz ka waran Kai Havertz oo lambar 9 ka dadban la ciyaarsiin karo hadii Timo Werner lagu soo bilaabo lambar 9 ka dadban laga ciyaarsiin inta badan waa ninkaas kulamadii hadda xilli ciyaareedka hore lambar 9 ka dadban ka ciyaarsiin jiray sida kulanka Champions League ugu dambeeyay kale Havertz nin dadaalayo waa Havertz laakiin kooxda loo baxay koox yar ma ahan koox fududna ma aha waa koox hadda macallin yani taktikadiisa ay ku dhisan tahay xoog difaac kooxdan koox adag oo indhaha shidanayso isku xiran oo teamwork iyo dadaal dheelayso waa marka kooxdaas haddii ay ku qabato ciyaaryahankan waa iska la fiiriyaa waa aragtay Havertz nin saas xoogan ma ahan marka Premier League-na xoog u noqday hadda dhinac u leexsato oo laga orod badan yahay lagana xoog badan yahay Lukaku hadduu imaado meeshaas 2-3 uu dhalnaa kulankaas laakiin Havertz kabtan ma siin lahayn aad ma san tahay saaxiib yaal saaxiib sharaf ay noo tahay inaa markii ugu horeysay aan nagala qayb gashid barnaamijka aad nala falanqaysid marar badan inaa nala falanqaysa rajeynayna insha Allah barnaamijkan wuxuu ahaa mid gaar ah oo aan ku falanqeynaynay xilli ciyaareedka soo socda dhawaan furmi doona qodobadii aan uga hadalno waxa kamid ahaa kulamada ciyaareedka koowaad saxiixyada iyo waliba doorashada kabtanka aad ay u mahadsanyihiin saaxiibayaal ha ilaabina inaad channelka subscribe saartaan sidoo kalena dhinacyada Facebooka Instagramka iyo Twitterka aad nooga soo biirtaan aad ay u mahadsantiin waa mahadsantahay